asalaamu calaykum saaxiibayaal filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa wiil arday ah magaciisuna yahay Alex Lily wuxuuna ka waramayaa wixii ka dhacay iskuulkiisa. Alex kalaaskiisa waxaa dhigata arday gaaraysa 17 qof, isagana waa midka 18aad isagoo ka waramaya wixii ka dhacay iskuulkiisa Meybrook. Wuxuuna leeyahay maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa jirtay maclimad cusub oo kusoo biirtay iskuulkeena. Wax walbana caadi ayay ahaayeen, arday kastana wuxuu u socday kalaaskiisa. Laakiin Mrs. Justin Gandhi oo ah maclimada cusub waxay xiisad ku lahayd kalaaskeena. Markay soo gashayna fasalka waxay arkaysaa kalaaska oo aan cidina fadhin, laakiin fasalada kale caadi ayay ahaayeen. Inkastoo Alex uu yahay ardayga kaliya ee xaadirsan fasalka, laakiin sababta ma garanaysaa. Haweenkii ka horeeyay saacadu markay ahayd 8:17 arday kasta oo dhigta kalaaska Alex waxay ka tooseen hurdada, waxayna ka soo bixeen guryahooda ilaa ay ku dhamaadaan mugdiga. Maalinta kalena dadka magaalada iyo booliiskaba waxay raadin ugu jireen carruurta maqan. Inkastoo qaar ka mid ah ardayda maqan guryahooda ay ku xirnaayeen kaamiro, laakiin kaamirooyinka ma qabanaynin goobaha mugdiga ah ee carruurta ka baxeen. Booliiskana waxay wareys la yeesheen Alex oo ah wiilka kaliya ee ka haray carruur, laakiin Alex waxba kama oga. Sidoo kalena Mrs. Gandhi oo ahayd maclimada fasalka ayaa wareys la yeeshay, inkastoo ayadana wax ku lug lahaansho ah laga waayay. Booliiskana wuxuu sheegay in muddo 1 bil ah la xiray iskuulka si baaritaano dheeraad ah loo sameeyo. Waalidiinta dhashayna carruurta waxay dalbadeen in shir loo qabto. Waalidiintana waxay codsadeen in Mrs. Gandhi oo ahayd maclimada fasalkaasi ay hor istaagto ayna cadeysay inay ayada ku lug leedahay. Mrs. Gandhina waxay sheegaysaa in carruurtaasi ay jecleed maqnaashiyoodana ay aad ugu xun tahay, laakiin qaar ka mid ah waalidiinta waxay ku qaylinayaan inay been sheegayso, ayadana ay ka dambeysay maqnaashiyaha carruurtooda. Maamulaha iskuulkan oo magaciisu yahay Marcus wuxuu u sheegay inay isdejiyaan waalidiinta aysan wax rabshada kicin, maclimadana lagu waayay wax dambi ah. Mrs. Gandhi markay guriga timaadana waxay maqlaysaa albaabkeeda oo la soo garaacayo, laakiin albaabka markay isha saaratana qofna ma taagna, wayna iskaga laabanaysaa. Laakiin mar kale ayaa loo soo garaacayaa albaabka, laakiin markan waxay usoo bixaysaa banaanka si ay u ogaato cidda soo garaacayso, laakiin qofna ma jooga goobta. Waxa kaliya arkaysana waa gaarigeeda oo lagu qoray ereyga witch oo micnihiisu yahay saaxirad. Subaxdii marka la gaarana waxay isku dayaysaa inay dhaqdo gaariga, inkastoo uuna tirmaynin. Sidoo kalena waxay ku wargelinaysaa booliiska. Markanna waxaan arkaynaa wiilkii Alex ahaa oo kasoo laabtay iskuulka iyo Mrs. Gandhi oo rabta inay la xiriirta isaga, waxayna garaacaysaa albaabka, laakiin lagama furayo. Markanna waxay u wareeganaysaa daaqada. Mrs. Justin Gandhina waxay isha saaranaysaa qayb yar oo ka furan daaqada, isla markiina waxay arkaysaa 2 qofood oo goob mugdi ah wada fadhiya, waxayna ka baqaysaa sida ay usoo fiirinayaan daaqada, wayna iskaga soo tagaysaa goobta. Maalinta xigtana waxay arkaysaa Alex oo kasoo laabtay iskuulka, waxayna kasoo degaysaa gaarigeeda. Mrs. Gandhi oo rabta inay u dhawaato Alex waxayna rabtaa inay wareysato isaga, laakiin wuxuu u sheegayaa inuu rabo inuu guriga aado, wuuna ka tagayaa. Wuxuuna sidoo kale u sheegayaa inaysan soo daba raacin. Mrs. Gandhina weli may quusan oo mar kale waxay garaacaysaa albaabka, sidoo kalena lagama furayo. Markanna waxay iskaga laabanaysaa gaarigeeda, inkastoo saacadda ay gaaraysa waqti dambe. Habeenkii marka la gaarana hurdo ayay la dhacaysaa, laakiin markan waxaa albaabka ka soo baxaya qof dumar ah oo wadatana maqas, waxayna usoo dhaqaaqaysaa dhanka gaariga, waxayna kasoo galaysaa albaabka kale, laakiin waxay jaraysaa qayb ka mid ah timaha Mrs. Gandhi wayna qaadanaysaa. Markanna waxaan arkaynaa askari magaciisu yahay Paul, ahna Mrs. Gandhi ama maclimada saaxiibkeeda. Isagoo gaarigiisa saaranna wuxuu arkayaa qof tuug ah oo daaqad u dhacaya, wuxuuna ku wargelinayaa inuusan ka dhaqaaqin goobtiisa, laakiin tuugga wuu cararayaa. Ugu dambeyntiina wuu qabanayaa. Tuuggan wuxuu magaciisa ku sheegayaa inuu yahay James. Wareysi dheer kadibna Paul wuxuu baarayaa James jeebihiisa, laakiin waxbana kama arkayo. Maalinta kalena waxaan arkaynaa Paul oo lagu wargelinayo in kiiskan uu daba dheeraaday, ayna tahay in si degdeg ah loo soo afjaro. Markanna waxaan arkaynaa kii James ahaa oo madaxa furanaya. Subaxdii marka la gaarana wuxuu gudagalayaa shaqadiisa oo ahayd inuu wax xado, wuxuuna raadinayaa gaari albaabadiisu ay furan yihiin. Marka dambena wuxuu silma filaana ku arkayaa gaari aan xirnayn, wuxuuna kala soo baxayaa boorso ay ku jiraan iPad iyo headsetka carruurta loogu talagalay, wuxuuna u geynayaa mid dukaanla ah si looga iibsado, laakiin James ma helayo wax aqbalaad ah. Sidoo kalena habeenkii marka la gaaray xil uu roob da'ayo iyo isagoo raba inuu u dhaco guriga wiilkii yaraa ee Alex, wuxuuna ka galayaa qaybta daaqada. Markuu gudaha u galana isla markiiba wuxuu raadinayaa wuxuu xadi lahaa, laakiin markan sheekadu way isbedelaysaa. Wuxuuna arkayaa 2 qofood oo kursi wada fadhiya, tuugii James ahaa oo naxsan, laakiin ayaga ma samaynayaan wax dhaqdhaqaaq ah. Wuxuuna aruursanayaa wixii uu qaadan lahaa. Markanna wuxuu furayaa albaab ka duwan albaabadii hore. James markan waa loo yaabaa, wuxuuna usii degayaa qaybta hoose ee jaranjarta, laakiin isla markiiba wuxuu arkayaa carruurtii maqnayd oo saf ku jira laakiin sii jeeda. James markan tuuganimadiisa waxay soo gelisay qol lama galaan. Carruurtana waxay hal mar usoo jeesanayaan dhankiisa, cabsi ayuuna la boodayaa, wuuna kasoo baxsanayaa goobta. Kadibna waxaan arkaynaa James oo sii gadanayo alaabtii uu xaday. Inta lacagiis loo qiimeynayana wuxuu arkayaa booster derbiga ku dhegan, waxaana ku sawiran qaar ka mid a carruurtii uu xalay soo arkay. Sidoo kalena waxaa ku qoran ciddii soo aragtay inay abaalmarin ahaan u helayso lacag gaaraysa $50,000. Jamesna markan wuxuu helayaa fursaddii uu ku taajiri lahaa. Markanna waxaan arkaynaa James oo iska lugaynayo, isla markiina wuxuu arkayaa askarigii Paul ahaa, wuxuuna soo bursanayaa James. Ugu dambeyntiina gacantuu ku dhigayaa. Markana James wuxuu ka baqayaa in la dilo, wuxuuna u sheegayaa carruurta inuu isaga soo arkay, waxayna usoo baxayaan dhanka iyo guriga Alex halkaas oo ay joogaan carruurta. Markay guriga soo gaaraanna Paul wuxuu u sheegayaa James inuusan kasoo bixin gaariga. Askarigana wuxuu gudaha u galayaa guriga, saacaduna waxay sii
sii gaaraysaa waqti dambe. Jamesna weli wuxuu sugayaa inuu kusoo laabto askariga. Ugu dambeyntiina waxaan arkaynaa askarigii Paul ahaa oo kasoo baxaya albaabka, wuxuuna usoo degdegayaa dhanka gaarigiisa. Laakiin askariga markaan qof caadi ah ma aha. Markuu gaariga soo furana isla markiiba wuxuu lugta qabanayaa James, dhulkoona kusoo jiidaya ilaa uu ku xareeyo guriga. Markan waxaan arkaynaa Marcus oo ah maamulaha iskuulka iyo saaxiibkiisa oo albaabka gurigooda loo soo garaacayo. Markuu albaabka ka furana waxaan arkaynaa islaan duq ah oo sheeganaysa inay tahay Alex yara ayeydiisa, waxayna u sheegaysaa in ay haraadsan tahay uuna siiyo biyo. Daawadayga sharafta leh, adigana muuqaalka laagtiisa sii. Laakiin markan sheekadu way isbedelaysaa. Markay albaabka soo dhaafiyaanna isla markiiba waxay dalbanaysaa in baaquli biyo loogu keeno. Laakiin Marcus ma oga waxa ay ka samaynayso biyaha. Inkastoo ay weydiinayaan waxa ay ka samaynayso biyaha, laakiin wax jawaaba ma siinayso. Isla markaasna waxay la soo bixaysaa qoray qodxa leh, waxayna ku jeexaysaa gacanteeda. Marcus iyo saaxiibkiisana oo weli yaaba waxay qoriga marmarinaysaa dhiigga gacanteeda ka socda. Isla markaasna waxay la soo bixaysaa maqas. Marcus saaxiibkiisana wuxuu la soo ordayaa maro uu rabo inay gacanta iskaaga xirto, laakiin tinta ayay ka jaraysaa. Marcusna wuxuu la soo baxayaa moobilkiisa, wuxuuna rabaa inuu si degdeg ah u waco booliiska, laakiin waxay la soo bixaysaa gambaleel. Isla markiina Marcus wuxuu sii deynayaa telefoonkiisa. Marcus markan wuu bedelmay. Markan waxaan arkaynaa iyadoo timaha Marcus saaxiibkiisa ku duubayso qoriga, wayna kala jibinaysaa. Markay kala jibisana isla markiiba Marcus wuxuu ku jeesanayaa saaxiibkiisa, wuxuuna qabanayaa ciiji, wuxuuna isla markiiba bilaabayaa inuu testeeyo, wuuna sii wadayaa ilaa uu madaxa burburo. Halkaasna waxaan ku ogaanaynaa maamada inay tahay saaxirad weyn. Markanna waxay boorsadeeda kala soo bixaysaa timihii Mrs. Gandhi, waxayna ku duubaysaa qorayga, wayna kala jibinaysaa. Marcusna isla markiiba wuxuu bilaabayaa inuu ordo, waxayna u dirtay inuu soo dilo Mrs. Gandhi. Ugu dambeyntiina wuxuu meel fog ka arkaya Archer oo ah mid kamid ah waalidiinta carruurta maqan iyo Mrs. Gandhi oo wada taagan, wuxuuna ku boodayaa maclimadda. Archerna wuu ka fujinaya, laakiin Marcus ma rabo inuu la dagaalo Archer. Mrs. Gandhina waxay helaysaa fursad ay ku gasho gaariga, wayna ka baxsanaysaa goobta, laakiin Marcus intaas uguma harayo. Dhanka kalena Archer wuxuu kasoo daba qaadanayaa gaarigiisa. Marcus oo orodkiisii sii wata, waxaa meel dhexe kasoo baxaya gaari si xawliya u socda, wuuna dardarayaa, waxaana sidaasi ku nafwaayay Marcus oo ah maamulihii iskuulka. Markanna waxaan arkaynaa Alex oo kasoo laabtay iskuul. Guriga markuu kusoo laabtana wuxuu arkayaa labadiisa waalid oo miiska cunada wada fadhiya. Isla markaasna waxaa soo baxaysa maamada saaxiradda, waxayna u sheegaysaa in Alex hooyadiis iyo aabiis ay wanaagsan yihiin, laakiin Alex intaasi kuma qancaayo, wuxuuna aabihiisa ku daadinayaa galaas biyo ah. Alex aabihiisna ma bixinayo wax jawaab. Saaxiraddan waxay Alex u sheegaysaa inuusan cidna la wadaagin, haddii uu qof kale u sheegana inay nafta dhaafinayso waalidiintiisa, haddana ay tahay inuu iskuulkiisa u laabto. Alex markuu guriga kusoo laabtan wuxuu arkayaa maamadii saaxiradda ahayd oo iska dhigaysa inay xanuunsan tahay, waxayna u sheegaysaa kaliya inay ku caafimaadaysa in waraaqada uu uga keeno iskuul. Subaxdii marka la gaarana Alex wuxuu soo urursanayaa wixii ay ka dalbatay saaxiradda. Markanna saaxiradda waxay jarjaraysaa waraaqadii uu keenay Alex, waxayna u sheegaysaa inuu ka tago goobta. Maalinta xigtana markuu iskuulka kasoo laabto wuxuu arkayaa askarigii Paul ahaa iyo James oo jooga guriga. Sidoo kalena saaxiradda waxay Alex u sheegaysaa inuusan soo gudbin xariijinta. Dhanka kalena Archer iyo Mrs. Gandhi way imaadeen. Mrs. Gandhi markay gudaha soo gashana waxaan arkaynaa Paul oo u tilmaamaya inay soo gudubto xariijinta. Markay soo talaabtana Paul isla markiiba wuxuu soo ordayaa dhankeeda. Mrs. Gandhina waxay isku dayaysaa inay ka baxsato. Dhanka kalena Alex yare wuxuu u tilaabayaa xariijinta. Sidoo kalena labadiisa waalid waxay soo aadayaan dhankiisa. Dhanka kalena waxaan arkaynaa James iyo Archer oo iyagana isku dhagan. Jamesna wuxuu Archer kusoo tuurayaa qolkii carruurta ay ku xirnaayeen, laakiin markaan Archer si lama filaan ayuu ku arkayaa carruurta. Alex yare labadiisa waalid waxay ku dhow yihiin inay soo dhaafaan albaabka. Dhanka kalena Mrs. Gandhi ayadoo ka xun waxay madaxa bistoolad kaga dhufanaysaa saaxiibkeedii Paul. Sidoo kalena waxay badbaadinaysaa Archer. Kadibna Archer wuxuu bilaabayaa inuu ka dhex raadiyo carruurta gabadhiisa Matthew. Inta uu gabadhiisa raadinayana waxaa hal mar kusoo boodaya maamadii saaxiradda ahayd, waxayna ka goynaysaa katiinadii uu xirnaa. Alex yarena markaan wuxuu isku dayayaa bal inuu burburin karo saaxiradda sixirkeeda. Archerna markaan way sixirtay oo wuxuu rabaa inuu dilo Mrs. Gandhi. Ugu dambeyntiina Alex wuxuu kala jibinayaa qoray. Isla markiiba carruurtu waxay bilaabayaan inay usoo ordaan saaxiradda. Ayadan waxay isku dayaysaa inay ka cararto maadaama ay rabaan inay dilaan. Meel kasta ay gashana way daba joogaan. Ugu dambeyntiina gacanta ayay ku dhigayaan. Qof kastana meeshuu qabta buu la harayaa ilaa ay cadcad u kala gooyaan. Sidaasna waxay ugu taqalluseen duqdii saaxiradda ahayd. Intaas kadibna waxaan arkaynaa Archer oo ogaalkiisa u soo laabtay. Markuu soo baxana wuxuu carruurta ka dhex raadinayaa gabadhiisa, wuxuuna sidaasi kula kulmayaa gabadhiisa Matthew. Dhanka kalena Alex iyo labadiisa waalid way midoobeen. Daawadayga sharafta leh intaas ayuu ku dhammaaday filimkeena. Haddii aad ka heshay ilowin inaad like garayso muuqaalka, sidoo kalena fikirkaada aad nagula wadaagta qaybta faalada. inta muuqaalkiisa xiga ku kulmayna sidaas iyo nabadgelyo.